السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن داودي الميل كستوعات كسوغنتين dunida daafaheeda galabta wax dhinacayga fadhiya Abwaan Khaliif Galaydh oo kamid ah suugaanyahanada ku nool gobolka Togdheer sidoo kale Abwaanku suugaanyahankii ama suugaantii imika waxa uu ku darsaday inuu noqdo qoraa dhanka suugaanta ah daawadayaal sida aad u jeedaan imika gacanteeda waxaan ku hayaa buug loogu talagalay dugsiyada sare buugaas oo magaciisa la yiraahdo ku yaaci buugan wuxuu ka kooban yahay su'aalo iyo jawaabo suugaana qaybaha kala duwan ee suugaanta haday noqoto hal xiraalayaasha kala duwan buugan waxa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda dugsiyada sare fasalka koowaad ilaa fasalka afraad soo dhawow Abwaan marka hore mahadsan tahay boqolkiiba boqol adigana aad baan ku salaamayaa waan ku soo dhaweynaa saaxiib waxaan doonayaa daawadayaasha inaad marka hore u faahfaahiso buugan ku yaacay saaxiib horta aad baan mahadsan tahay buugan waxa la yiraahdo ku yaacay waxa weeye dhowr bilood ma qoray in badan baan ku hamiyay inaan qoro buug ardayda caawinaya marka waxa weeye buugan ku yaaci magacaan horta habeen ka fikiray habeenkaas oo waxay ahayd ilaa 10 habeenimo meelaasay ahayd waan siixanay markaasaan waxaan sirinay umad ardayda u soo saartay buug anfacaya oo la yiraahdo ku yaaci marka erayga ku yaaci hadii la sii daba galo horta dad badan baa waxay dhahaan waa afsuuqi laakiin ma af Soomaaligu markuu soo baxayo xilli kasta wuxuu leeyahay waqti cusur ama waqti casri buu leeyahay sida daraaddeed eraygu markuu soo baxayna taado waa afsuuqi waxa weeye laga yar wanaagsan yahay marka ku yaaci waxaan ka soo qaatay hadii jeer ardaygii baa galaas imtixaan ku galaya laba arday isku galaasa ayaa laba galaas oo kala gooniya imtixaan ku galaya hadhow doontan imtixaanka markay ka soo baxaan ayay faqaraha soo imanayaan marka saaxiibkii ugu horeysan iyo xukuranaya tusaalan xisaab kale galeen wuxuu ka waran imtixaankii wani ku yaaci boodhanaya marka macnaheedu wani ku yaaciyay maaha wani qishay waxa weeye waxa si wanaagsan u garatay si fiican u garatay imtixaankuna xeerar buleeyay imtixaanku xeerarka uu leeyahay waxa kamid inaanu aad iyo aad u adkaanin waxa kale oo kamid inaanu aad iyo aad u jilicsanaanin sida daraaddeed inuu noqdo neutralization wax dhexdhexaad inuu noqdo marka waxa weeye imtixaankii wani ku yaacay waxa weeye si wanaagsan baan u gartay si wanaagsan baan ugu shaqeeyay marka maadaama buugan ugu macdaar ku yaacay oo yahay dugsiga sare su'aalo iyo jawaabo waxa weeye imtixaankii adigoo aan qishin ayaad si wanaagsan u fahmaysaa haddaad waxa weeye buugaas aad waxa weeye si wanaagsan u fahanto oo waxa weeye si wanaagsan aad uga dhigato buugan saaxiibka ugu wanaagsan aad baad mahadsantahay waxaad ii sheegtay in muddo dhowr bilood aad buugan aad qoraysay runtii buugan waxaad ugu tala gashay ardayda dugsiga koowaad ilaa dugsiga form 4 sida ay ku taalo muddadii buugan aad weydiin ma jiraan wax caqabad ah oo ka hor yimi ama dhalinyar asxaabtaada ah oo ku niyad jabiso ku jiray war waxna ma soconayaan iska daa kale way jiraan waxa jira markii aan qofku markuu garanaysa hami leeyahay waxa weeye hamigiisa horta in ku sii socda wanaagsan dad badan oo runtii ku niyad jabinaya way jiraan marka waxa jirtay kulli dad badan baa waxay raahdeen anagu magaca markii aan soo saarayay waxa weeye markii buug soo saarayso kulli dad badan baa jeceshay afkaartooda ka dhibtaan marka waxa weeye dadka markii aan buuga markii aan soo saarayay ilaa 20% waxay dhahaan anagu magaca ma taageersan 80% waxay dhahaan waanu taageersana marka 20 markay meel ku hadaan waayeen ay 80 ka tabatageen ka tabayaceen marsiina war anaga khaldanay markii hore marka kulli caqabado badan way jireen caqabadaha laakiin waxa kamid ah kulli markii aan qorayay rabadaantii kale aan qorayay waxa weeye waqtiga nus saaco oo kale ayaan qorayay dugsiga saraan dhigay marka waxa weeye waqtiga nus saaco oo kale ayaan qorayay galabtii bacda afar aan qorayay habeenkii waan qorayay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan xasuustaa barnaamijkii kasmal shirkadda samtel ay hogaamin jirtay barnaamijka kale kubciga garaadka shirkadda Telesom bay hogaamin jirtay labada barnaamij rabadaan bixi jiray marka waxa weeye kulli su'aalo badan bay secretary ka soo saareen marka si wanaagsan ayaa waxa weeye ay u daadin jireen marka su'aalo badan oo halkan ku yaala ayaa halkan ku yaalo waxa weeye qaar baan isku soo beegmi jiray waxa ka daadinayna xaqana ka wado marka waxa weeye runtii waxa weeye waxaan in badan baan ku hamiyay inuu garanaysa caqabadaha xagga qoraalka kale ay caqabado badan ka yimaadeen caqabadaha waxa kale kamid ah markii aan buuga imika wacyigelintiisa waday waxa weeye dugsiyada saraan marinay dugsiyada sare ayaan marinayay maamulayaasha gobolka Togdheer oo dhan dugsiyada sare iyo maamulayaasha intermediate dugsiyada dhexe inkastoo ardayda dugsiyada dhexe qudhooda ay ka faa'iideysanayaan aqoon guud u leeyahay oo waxa jirta chance man helina soo saaray buug ayda laakiin waxa soo saaray buugaas secretary-ga marka macallimiintii iyo maamulayaasha markii aan la tashaday waxa ugu dhahay buug ayda meed qorto marka markaan ugu jawaabay man qorin ilaahay qadarkiisa wax walba ku socdaan waxa ugu dhahan buugan aad baa u anfacaya ardayda intermediate marka waxa dugsiyada gobolka oo dhan waan soo mariyay dugsiyada gobolka oo dhan waan soo mariyay marka laga reebo laba iskuul kaliya marka iskuulada gobolkii oo dhan baad soo marisay laba iskuul baa marka kugu go'an seedayo buugana soo dhaweyn miya sida hadalka uga jeedo aha iyagu waxa weeye buugaba dadka way fikireen bay waxay raahdeen ba hadii jirxiisadooda aad u tixgeliyeen waxaan fahansanay malaha inaan de wax aad u muhiim ah aan wado de marka waxa weeye
كل واحد لما مقعبه واحد لما مقعبه وحوي اسكولada waxa lama magacaabo laakiin waliba iskuul jiro gobolka okay aad baad mahadsantahay muddadii aad waday ma jiraan buugga markii aad dhameysay dhalinyaro ku soo xidhiidhisay ama macallimiin ku soo xidhiidhisay oo kugu dhiirigeliyo kugu yiri hawl wanaagsan ayaad qabatay way jiraan dugsiyada gobolka oo dhan markaan mariyay dugsiyada sare gobolka oo dhan markaan mariyay waxa weeye aad iyo aad bay ardayda iyo maamulayaasha ugu faraxsanay waxyaabaha aadka aan ugu faraxsanahay ee si farxad geliyo waxa kamid ah horta mar walba waxa weeye markuu qofku wax ku hameeyo inuu horumar gaaro hadii ilaahay kaashado uu guuleystaa sida daraadeed waxaan aad ugu faraxsanahay maamulayaashii gobolka ay soo dhaweeyay macallimiintii gobolka ay soo dhaweysay ardaydii gobolka aad iyo aad soo dhaweysay ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan xasuustaa imtixaanaadkii form 4 ee sanadkii dhaweeyay ayaa ardaydii waxa lagu qortaa curs ku saabsan dayaxa iyo faa'iidada inuu leeyahay curskaas oo ay ku jiraan ugu yaraan 200 eray adigoo adeegsanaya far qurux badan weero murtile iyo aftahanimo marka waxa jira calaamad far badan leh astaamaha ku qorma weeraha dhexdooda marka waxa weeye curski waxa ardaydu kuma shaqeyn aad iyo aad buu adkaaday waa afkoodii waxa laga yaabaa ardayga inuu magaras ingiriisi si wacan ugu shaqeeyo maadada physics si wacan ugu shaqeeyo chemistry si wacan ugu shaqeeyo laakiin waxa weeye suugaanta waa magaras af Soomaaliga dhaqankiisi inuu aad iyo aad ugu adkaado waxaan arkay dibadana weeraha ay qoreen oo waxa kamid ahaa waxa weeye weeraha ay qoreen dayaxu waa wax weyn oo xagga cirka ku yaal marka waxa weeye waa xirfad curska marka qorayso waxa weeye xirfadda la doonaya ahanaanka ugu fiican ee systemka wax loo qoro inaad wax u qorto marka waxa weeye waa xirfad marka waxa weeyaan in badan baan anigu aad u jeclaa wax qoritaanka dugsiga dhexe kale hadaan imka ku sheego maadooyinkan ugu jeclaa kamid ah tarbiyadda iyo maadada Soomaaliga marka waxa weeye qoraalkan aad iyo aad baan ugu siiyay waxa uu isi dhiirigeliyay waan ku hamiyay inaan soo qoro buug kale aan soo saaro insha Allah form 1 waxa ku yaala 100 su'aalood jawaabood form 2 na 100 su'aalood jawaabood form 3 na 100 su'aalood jawaabood form 4 na 100 su'aalood jawaabood marka waxa weeye xaqana waxaan ka qora hadaan imtixaanka judhiiba dhacayo anoo dhulka jiifa markiiba arkaayo dhibka ay hareelay si aan uba dhaafo buugan aan dheehdo marka waxa weeyaan ardaydii uu aad iyo aad u caawinaya xagga suugaanta ma garanaysa ku ahaan jiray ku liidatay ayuu aad iyo aad u taageeraya ugu dambeyn ardayda iyo dadka daawanaya ee barta YouTube-ka ku xidhan maxaad fariin u marinaysaa waxaan fariin u marinayaa intii dhiirigelisay intii aan la kulmin inta aan jecelahay inaan la kulansiyo buugga oo aan darasiyo goob kasta oo wax lagu baranayo tusaale ahaan ay laba qof ay wax ku baranayaan 10 qof ay wax ku baranayaan waxaan jecelahay buuggan inaan gaarsiiyo marka waxa weeye bulshada intii soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan farayaa iyagan in markaas waxa weeye buugga ay si wanaagsan uga faa'iideystaan buugga waxa weeyaan 101 page waxa weeyaan tusaale ahaan hadeer waxaan ku lahaa form 4 waxa lagu yiri curs qora ku saabsan dayax iyo faa'iidada inuu leeyahay si curug garan waayay iyagoo aan adeegsan waliba astaamaha loo adeegsado qoraalka loo adeegsado xeerarka marka calaamado badan baa jira sida calaamada joojiska calaamada hakadka bilaha qowseenka calaamadahaas kale calaamada nasashada hal weero aan qoray baan jecelahay inaan magaranaysto bulshada la wadaago halka weer waxay leedahay gabadha fadhida hakad waxaan adeegsaday calaamadaha loo adeego astaamaha ku qorma weeraha dhexdooda la yiraahdo astaamaha ku qorma weeraha dhexdooda marka waxaan qoray gabadha fadhida hakad xafiiska hakad akhriyaysa wargeyska hakad cabaysa sharaabka hakad u sheekeynaysa saaxiibadeed hakad iyo nasasho waxa la hadlayaa agaasima joojis waxa jira weer kale marka doonaysa inaad wax soo socda aad sheegto waxa halkan ku qoran gabadhu waxay iibsatay laba dhibcood baa la qoraa gabadhu waxay iibsatay dadna laba dhibcood baa qoraysa labada dhibcood waxay tilmaamaan wixii ay iibsatay inay wax soo socda basal hakad baradho hakad xabuub hakad salad iyo qasac joojis marka waxa weeye waxa jira calaamad kale oo leeyahay haga muujin calaamad kale oo leeyahay bilo leeyahay calaamad badan baa jira marka waxa weeye calaamadahaasi waxay ka qayb qaadanayaan oo ka caawinayaan markaad curs qorayso ama maqaal aad qorayso inaad si fiican oo aad u qurux badan oo bulshada soo jeedata inaad magaras wax u qorto marka bulshada waxaan u soo jeedinayaa inay ka faa'iideysan doonaan insha Allah aad baad u mahadsantahay waxaan rajeynayaa dhalinyaro ina daawanaysa iyo dhalinyaro kaleba inay buuggan xogtii oo xambaarsan iyo su'aalaha xambaarsan ay halka ka dheehanayaan daawadayaasha mar kale waxaad igu celisay buuggan halka ay ka heli karayaan buuggan horta waxa laga heli karaa madbacado gobolka togdheer ku yaalo caana sida madbacada togdheer oo kale madbacada dayax printing center oo kale maktabada al xusno oo kale maktabada al fajri oo kale maktabada sacaado oo kale marka waxa weeyaan buuggan waxa weeyaan maktabadahaas ayaa laga helayaa ardaydan aad buu u kaabaya aad buu caawinaya waa 101 page weey